بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabnaa in dhacdo runtii aad u xanuun badan ee ka dhacday magaalada Muqdisho inaan ka hadalno xalay saqdi dhexe waqtigii 4 aroornimo ayaa waxaa dhacday muwaadin Soomaaliyeed oo gabar ah Qadra Maxamuud inay tagtay goob caafimaad ee degmada Xamar Jajab una tagtay fool haysay darteed inay ku dhasho goobtaas caafimaad goobtii caafimaad oo saacadaas saqda dhexe 4 aroornimo ay tagtayna waxaa nasiib darro noqotay in loo diiday inay halkaas ku dhasho isla markaana gabadhii Soomaaliyeed Qadra Maxamuud goobtii caafimaad dibadda uga soo baxday bannaankii ay noqotay inay ku dhasho waxaa kaloo aad iyadana ugu faraxsannahay in Qadra Maxamuud iyo cunugiba ay caafimaad qabaan hadda idinla hadlayno gudoomiye ku-xigeenka maamulka arrimaha bulshada ee gobolka gudoomiye Basmana ee booqatay si ay ugu kordhiso xaaladda gabadhaas ay ku sugan tahay Qadra Maxamuud iyo cunugii ay dhashayna labadaba aad bay u fiican yihiin shacabka waxaan ugu bishaareynayna arrintaas iyada haddana isbitaal ay ku jirtay ay ka soo bixi doonto hase yeeshee waxaan rabnaa halkan inaan la aqbali karin goob caafimaad oo xaalad degdeg ah gabar Soomaaliyeed ugu timid inay dhasho in loo ogolaan waayo inay xaqaas oo hesho arrintan waa arrin fal dambiyeed meelna looga dhacay xaqa muwaadinkaas Qadra Maxamuud iyo dhammaan xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee foolanaya ma aha isbitaalkaas ama goobtaas caafimaad ay tagtay inuu u diido inay gabadhaas dhasho haddii ay wax kala dhici lahayn maanta mas-uuliyaddaasna iga qaaday annaga maamul ahaan waxaan cambaaraynaynaa falkaas isaga goobtaas caafimaadka ee ku kacday maamulka goobtaasna waxaan u gudbin doonaa hay-adaha dambi baarista si sharciga loo horgeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana ay u mutaystaan dembigaas iyo dembi ku dhigi laakiin annaga haddii aan nahay maamulka waxaan naga go-an shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan laga aqbali doonin goob caafimaad qof haweena oo weliba dhallinyarada ugub ah markii ugu horreysay tahay goob caafimaad inta timaado loo diido taas wax la aqbali kara maaha wax la yeeli kara maaha waa dembiga ugu culus waxaan rajaynaynaa hay-adaha aan u gudbin doonan garsoorka iyo hay-adaha dambi baaristaba inay sida ugu dhaqsiyaha badan maamulkaas iyo isbitaalkaas loo baaro tallaabada sharciga waafaqsan la waafajiyo shacabkan waxaan u sheegaynaa iyo goobaha kale ee caafimaadka ee laga yaabo inay falalkan oo kale ku kacaan inaan la isaga hari doonin waxaan samayn doonaa annaga maamulka gobolka Banaadir annagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka inaan goob kastoo caafimaad iyo dadka maamulaba shuruucda ay ku shaqeeyaan iyo nidaamka sidii loo waafajin lahaa oo falka noocan oo kale looga hortegi lahaa ayaan ka wada shaqayn doonaa waa mahadsantihiin